kusoo dhawaada isbitaalka Turkida ee Midwell Clinic oo lagaga furay xaafadda Tottenham. Isbitaalkan oo lagu soo diyaariyay adeegyadii dheeraadka ahaa oo Soomaalidu ay aadi jireen Turkiga ayaa halkan idinkugu soo diyaariyay. Maanta ayaan soo booqanay si Soomaalidu wax badan ay uga ogaadaan. Isbitaalka Turkida Midwell Clinic ayaan soo gaarnay. Waxa dhinacayga jooga Dr. Hussein Nuno oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalkan oo ku yaala xaafadda Tottenham, North London. Isbitaalkan oo lagu soo diyaariyay adeegyadii saa'idka ahaa oo Soomaalida ay u aadi jireen dalka Turkiga oo markaas qiimihiina ay si aad ay sagaag leeyihiin. Dr. Hussein waxaan kugu soo dhaweynayaa Kalson TV. ودوهاي هذين صدقوا إن شاء الله تعالى هل كان يساشكتي وميديوال كلينيك وأنا استال عالمية أو كلينيكة أو برايفت وأنا كهول قلنا أنا جد قاتل كليات وبدن وحتى قاركود الصوماليين ليفل كونسلتنت تنجنا مركا صدقوا مجا وجدان كانوا كقرنية هاي ميديوال كلينيك وحكاه القول أنت أنا دقاتيرة waxaan u jeedaa Dr. Maxamed بدنا كجرا دكتور محمد علي كله دكاتير بدن oo Turki ah دكاتير تركي ah kuwa Bulgariana haatan intaan dhaqtar ay joogta aad u fahmay aad u badan Dr. waxaan oo dhaqtar maxay qabtaan maadaama halkan Ingiriiska NHS joogto isbitaalkan muxuu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed oo maanta aan ugu talagalnay inaan la hadalno maxaad u sheegaysaa ummadda tusaale ahaan annagu waxaanu bixinaa second opinion marka ugu horeysa qofka markuu lacala istaalada GB-ga iyo NHS-ka uu soo maro oo kale mararka qaarkood second opinion ahaan waa nolol tashtaan dadka iyaga queue-ga macnaha ku fogaaday oo kale qaarkood waxay jecel yihiin inay noo yimaadaan si howlahooda si degdeg loogu qabto sida kale waxaa jira dhaqaatiir iyagoo private ah oo ka yimid dalka Turkiga oo ahaa dadkii loo aadi jiray inay iyagu ay ilkaha sameeyaan oo kale iyo qaliinada qaarkood iyo kuwa timaha oo kale intana way ku buuxaan waxa kamid ah xataa vitaminadii khaaska ahaa ee dadkeena darawaliinta ah ama hooyooyinkeena xogaa yar daciifeen vitamiinkooda kale waxaa jira dawooyin vitamins oo halkan dadka lagu siiyaan dadka Soomaalida ah Turkiga waxa ugu muhiimsan ay u aadaan waa inay bidaarta soo sameystaan ama ilkaha soo sameeyaan ama maaragtay dumarka vitaminka isku soo shubaan ma waxa leedahay adeegyadii Turkiga loo aadi jiray oo dhan waa la soo dhaweeyay halkan ay diyaar ku yihiin dhaqaatiirtan oo aniga aan iyo laba qof aan Soomaali ka nahay oo kaliya intooda kale waxay ka yimaadeen Turkiga waxayna ka howlgalaan Turkiga waxa ku yaal centerkii oo sameynay qaybta maxaan ku yiraahdaa timaha bidaarta ah sameynay dadka xataa timahooda ay daciifeen ay vitaminada ay kariin oo kale waxay ku shubayaan vitamin oo khaas ah oo adkeynaya macnaha timaha laftigooda adkeynaya kamid ah ilkihii oo loo aadi jiray dalka Turkiga dadkoodii ayaa yimaadeen halkan joogaan marka wax badan oo macna dadka Soomaaliyeed u safri jireen inay Turkiga ay hadib loo keenay dhaqaatiirtana kale ee specialistayaasha halkan ka shaqeeyeen iyagu laftigooda waxaan naga xitaa ka shaqeynaa government-ga NHS-ta haddana laakiin halkan waan imaanaa laba maalin saddex maalin camal dalabka badan si aan dadka macnaa second opinion camal u siino iyo waxyaabaha degdega ah oo aan ku saacidno insha Allah taala waa private clinic waaye tusaalahan hadda dadka soo qaadana halkan oo kale qaybtan waxay noo tahay qaybta dentistiga ilkaha dhaqaatiirta halkaas ka shaqeynaysa waa dadkii Turkiga ka yimaadeen halkan ayaa loo soo dhaweeyay marka hadda baahi dambe oo xaggaas loo aadona ma jiraan Dr. wiilasheenii ilkahooda intooda badan waa hore bedeshay oo hadda ilkaha implantiga loo sameeyay ama ilkaha loo ilkaha siro laga soo bilaabay oo kale halkan ma ka helayaan adeegyada ay Turkigu aadaan xaqiiqatan wax kasta oo ku saabsan xagga ilkaha loo aajiro Turkiga kuwii joogeen ayaa halkan yimaadeen marka service-kii ay soo dhaweeyeen xaggan way ku leeyihiin center halkan way ku leeyihiin marka dadkii xagga aadi lahaa inta ugu jaban waxa kale jira qolkan kale oo ninka senior-ka ee dhakhtarka uu ku jiro waxaan weydiisanaynaa inay noo ogolaan donation hello waa qayb kamid ah dentist waaye dhakhtarkii Turkiga ka yimid senior-ka ah ayaa jooga oo halkaas lagu yaqiinay halkan jooga shaqada uu wado arkaysaan qaybtiisa waxa ay tahay qaybta dentist ah marka shaqo socoto way hadda patient uu ku wado marka hello ma santii dad badan oo Soomaali ay ka faa'iideysan doonaan halkan oo kale waxaa ku jira qolkan dhakhtarkeena kale ee GB-ga ah
Okay. So وجد المقعيس وحالها Dr. Dr. Haider. Yes, Dr. Haider, how are you? Hello. This is afternoon. Carlson TV on your room. This is our TV, Somali TV. We are going to promote for these Somali speakers to come and welcome to you. This is Dr. Haider. Okay. وسينا جي بي وايه. Okay. وأنا قف كوم مهمسن هذا قيبة جي بي جوجا. صار كشقية. وقف كان قبتي سياهي. Welcome, Dr. Haider. Welcome. Hi. What do you want to say for Somali community today? We would like to say we are here 7 days a week, Monday to Sunday. We've got GP services, we've got specialist services, and we would be happy to see them. Do you have same-day appointments? We do, yes. We have same-day appointments. You can pre-book them in advance, and yeah, so we've got plenty of appointments. Oh, thank you, Doctor. sida uu noo sheegay waxa waaye dhakhtarka seniorka noo ah ee xagga GB-ga ku takhasusay 7 usbuuc maalin waliba waxaan leenahay imaatin joogto ah qofka wuxuu ku soo buug gareysan karaa Medwell Clinic online halkan uu soo wici karaa telefoonada ku qoran isna uu ka heli karaa waana ku faraxsanahay uu yiri inaan macaan dadkeena shacabkeena muslimiinta Soomaaliyeed halkan ku caawino insha Allah. Thank you so much. Thank you, Doctor. You're welcome. Yeah, I see you later. Yeah. halkani waxaa ku jira dhakhtarkeena Dr. Ahmed. We are Somali Community TV. dhakhtarkeena waa he is a radiologist doctor. dhakhtarka ku takhasusay علومته معناها الشيعية معناها راجوينك إكسريجا ألتراساوندك وأنا دكتور تكنيك معها وسبيشاليستي أو دكتور أو كتخصصي راديولوجيستي قيبت MRI CT سكان حاصلا هل كان وحي لقص من كلا يقص معيا أنتي لقص من كرين وسعان كلا Welcome to TV. This is our TV. وأنا دكتور تركيا. Yeah. The name is Carlson. So this is for Somali community. We are going to inform them that they have an opportunity instead of going to Turkey to come here. They will get everything possible. Everything they used to go in Turkey and here now. We are using a lot of machines here. Our ultrasound is using for the latest ultrasound machines. So private patient وحواي وقيبتان كل كان وقولكي سوية ماشى ما دام أي تعمله كين برايفت لما هو كم من نوعين دكاترته ومعنا كعادي وحكستو حنكين سبيشاليست كين سيدو كلا thank you so much أحمد thank you Dr. أحمد thank you this is Dr. Kenan مجلس كانوا كقرية the way you see this is the name of the Dr. Kenan he is وحواي دكتور أو تخصصي فيها لفحوي. Welcome Dr. Kenan. Nice to meet you. Sorry for disturbing you. So Dr. Kenan waa dhakhtarkii oo Turkey waa self-tigiisa. Surgeon. One surgeon. Yeah, we are treating all kinds of pain, neck pain, back pain, hip pain, foot pain, knee pain. Good. Yeah. Good. When you come to the arthritis and the bone pain, are they connected? Yeah. All kinds of muscle pain and then because of Somalian community, most of the women they have Soomaalida inta badan ee arthritis ka qabta sida back pain oo kale dadka inta badan darawlinta ay class ku fadhiya more than 4 hours ka fadhiya dareemayaan madax xanuun dhabar xanuun xagga lafaha ah waxaanu inta badan u wacnaa surgeon kan dhakhtarka ah oo ah orthopedic surgeon doctor ah marka we are very happy. We do back injection to relieve the patient's back pain, and then we do physio as well. We have got physiotherapists. After injection, we treat to physio immediately. Dr. Kenan wuxuu sameynayaa uu yiri xirbada dhabarka xanuunka uu ku durayo dadka Soomaalida ah maadaama in badan hooyooyin kamid ay dhabarka xanuunayaan oo arthritis-ka dhibaatooyin badan aan ka qabno muhiim ay tahay ayaan u maleynayaa Dr. Xuseen in halkan yimaadaan dadka iyagoo xanuunka qaba ee fadhiga badan ee lafa xanuunka qaba iyo waxaas oo idil loogu talagalay inay halkan yimaadaan dadka qaarkood waa durinka la duraayo waxa waa specific waxa waa oo meel gaar ah ay leeyihiin laga duro marka dhakhtarka khaaska ay dhankaas ku fiican waa isaga marka wixii la fogsaafsan ee Turkiga loo aadi jiray isaga ka yimid hadda insha Allah taala welcome thank you so much halkani sa arkaysaan qolkii Dr. Xuseen qolkayga weeye ku qoran pediatric consultant room
inta badan beeshinada waxaan ku rabnaa waa caruurta ah qolkan dabcan waa qolkayga halkani magacayga ku arkaysaan inta badan fikrada aan bixino oo second opinionka waxay ka mid tahay xitaa dadka qaba inta badan caruurta autismka oo kale calaamooyinka lagu garto oo kale si fudud hooyooyinka laftooda inay gartaan waa muhiim warbixinadaas oo kale aan bixinaa xanuunada asmada oo kale allergiga oo kale waxa alla wixii la xiriira baaritaan guud iyo baaritaan oo gaar ahaaneed ee ku saabsan caruurta halkan ana u qaabilsan waxaan inta badan joogaa maalmo khaas ah laakiin mar waliba muhiimaddu waxa ay tahay in lala soo xiriiro klinikada iyaga muxuu ahay sameynaya waqtiga loogu talagalay ee fasaxa ah caruurta yaryar oo joogta Soomaalida ah waxay la dhiban yihiin allergiga asmada eczema dry skinka caruurta yaryarka waxaasoo dhan ma qaabishaa mase xanuuno gooniyaha qaabishaa sida badan caruurta any nooc ay ku yimaadaan stationka ugu soo horeeya waa halkan haddii ay GB soo maraan oo kale iyo haddii toos anaga ay ku yimaadaan wax kasta oo kaas caruurta ah waxaanu ka bixinaa talo iyo dawo inta iyo baaritaano mararka qaarkood galbihii oo kale iskuulada markay xirihiin kala yimaadaan marka haddii ay ahaan lahayd food allergy oo kale cunada qaarkood oo waxaa jira testi aan halkaan ku sameyn oo kale oo sheegaya canuga cunada markaasi asigu allergy ku yahay oo kale eczema oo kale laftigeeda waxa keeni kara dawooyinkeeda oo kale ayaanu bixinaa neefta oo kale laftigeeda dawooyinkoodan bixinaa qof walba halkaan yimaadana waxaan warbixin gaar ah siinaa GB-giisa waxaan u fududeynaa xitaa GB-ga inuu marka uu tago uu maxaan ku yidhahdaa waraqadeen la tagi karo oo markaasi iyagana ay halkaa kasii amba qaadaan marka xanuun kasta oo canug ku dhaco cala aqal wixii suuragal ah ayaanu ka qabanaa halkan wixii oo ka weynaadana isbitaalka weyne qaranka ayaanu u gudbinaa sida isbitaalada growth hormone oo kale caruurta loogu talagalay iyo meelaha qaarkood ah wixii emergency ah dadku waxay aadaan baaritaanadaas oo kale sida allergy testing oo kale isla maalintii miyaa samaysiin ma sida NHS oo kale bilo la sugaa inaa baartiin qofka hadduu yimaado halkani uu soo raadiyo inuu macnaha oo testiga u baahdo aan u aragno isla markiiba waa sameynaa in saacado kadibna jawaabta waa ka imaanaysaa wax oo daahitaan iyo ballamo kale oo la qabanaa ma jirto same day same work waaye insha allah waxaan filayaa dad badan oo ka mid ah communitygeena inay halkan soo aadi doonaan maadaama aan ognahay caruur yar inaan leenahay allergiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale iyo baaritaanadana in lagu qaadato waqti dheer waxa laga yaabaa balanta lagu qabto hal sano inaad sugaysay lacag yar oo aad maanta ilmaha aad fanfare ku geysay ama aad ku geysa McDonald's aad ku baari karto marka soo booqda Midwell Clinic waxa idin jooga dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ugu horeeya Dr. Xuseen Nuno oo aad arkaysaan in baahiyihii anaga aan qabnay oo caruurta ugu badneed oo asaga naga qabtirayo dhaqaatiirta kalena ay waxyaabo kale naga qabtirayaan dhan walba hooyooyinkii iscaateynay oo caloosha soo jiray kuwii fitamiinada raadinay fitamiin D hadduu kugu yar yahay kulli halkan ayaa la idinkaga qabtirayaa soo dhawaada Soomaaliyeed hore ayaan u sameeynaa Dr. Xuseen sida qolkan oo kale waxaan ugu talagalnay waxaa ku shaqeeya dhakhtarada dumarka ee khaaska ah ayaa ku shaqeysa maanta kale off weeye laakiin oo arkaysaan waxa yaal qalabkii loogu talagalay ayaa yaala oo shaqeynaya halkan iyo halkaas oo dhameystiran iyagana waxa weeye maanta way maqan tahay shift ahaan bay ugu maqan tahay marka saa darteed ayadana waxay ka mid tahay dhaqaatiirta oo consultantiga ah ee Turkiga laga keenay xagga dumarka xitaa waxyaabaha qaarkood oo laha vivatka sida macnaha caruurta dadka raadinaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyo waxyaabaha xataa boosayska ay maraan halkan ku sameeysaa abuurka day noqon lahayd oo kale caruurta lagu talaalay waa lagu sameeyaa macnaha halkan ku sameynayso laakiin dawooyinkii iyo socdaalkii halkan ku bilaabmaya laakiin markii hawsha noqoto maybe in halkan ku sameyso maybe meel kale kulay waa qof oo heerkaas gaaray waxaas la sameeyo way insha Allah ta'ala hore haddaan usii soconno meesha tan waa meesha iska dawooyinka iyo qaarkood mashiinada khaaska ah sida dadka maxaan ku yiraahdaa BRB oo kale BRB waxaa la lahaa dadka macaanto timahoodu ay vitamin ku yiraadeen oo kale oo jilcay oo timuhu daadanayaan oo kale in macnaha mashiinadaas waxaan ku sameynaa qofka dhiigii baan ka qaadaynaa dhiiggiisii laftigiisii baa haddana loo filtreynaa isaga lagu plasmada la soo qaaday isaga baa lagu soo celinaa dhiiggiisii oo qofkii marka allergy ku qaadayo waa wixiisii isaga marka qaybtaas halkaan ku sameynaa qaybtan oo kale I think dhakhtarka hadda inuu ka maqan yahay inuu joogo hello oh sorry
maybe shaqa ka socoto. Yes, hello. Oh, yeah, doctor, we have a TV for our community, Somalian TVs. We are going to introduce for you as Yeah, they can are the doctor's specialist for. This is Dr. Dr. Okerman. marka dhakhtaradani waa dhakhtarada ku taqasustay halkan ka shaqeysa maanta waxay ku taqasustay macnaha lugaha iyo ilmaha caruurta qaarkood oo lugahooda macnaha ay kala dhantaalmeen balance uu ka dhumay oo kale inay u sameyso waxyaabaha loogu talagalay oo kale halkan ku shaqeysaa staffkeeda iyo waxna u joogaan. Thank you so much for. Thank you, Doctor. meesha tani waa meesha ugu muhiimsan oo coat lagu galayo oo laftiis aan iska furnayn. Yes, doctor, how are you? Good, fine. We have a TV here. No, not his face. Not his We're face. hiding his face. No, We are doing it straight away to the operation now is running about the ongoing about can you hide his the face there? hair clinic. Yes, you can come. halkan waxaa ka socoto timo abuuristii. hadda operationkii oo socdo waaye oo tintii la abuuraya wax kala ma aha tintii qofka TC ba inta la soo gooyo qaybta dambe ba xaga u faan dadka hadda ay galabtooda Turkiga ka yimaadeen xagan waxay ku leeyihiin muxuu ahaa meel kale oo clinic ah halkan meeshoodii farci labaad weeye marka saadarteed marka shaqadu way socotaa waa hadda way socotaa saas socotaa muddo qaadanaysa marka thank you so much. wax dhaaxaha Turki timaha loo aado la soo abuurtay halkan ayay ka socotaa hawshii maxaa safarka guriyada adiga waxa xanuunsan inaad diyaarad iyo sii raacdo qalin ugu sameeyo. Beeshinadu waa joogto xaqiiqatan maalin kasto waxa way ugu jiraan qof baa shaqada ku booking dheer jiro marka dadku way yimaadaan way soo booking gareystaan marka dadka iyaga laftigooda maalin kasto waxaa la qaybiyaa hal patient marka daily 24 hours from 8 in the morning ilaa iyo laga gaaro 7 at night habeenkii waa shaqeeyaan ilaa waxay qaadanaysaa taqriiban 8 saacadood ay qaadanaysaa marka waxa alla wixii timaha qofkii uu ka jilicsan yahay oo biyaarta leh ama qof alla qofkii raba in macnaha timihiisa ay jilceen raba in loo adkeeyo oo kale way imaan karaan halkan wuxuu la soo xiriirayaa xafiiskaas laga soo bilaabo iyaga markuu soo dhaweynayo iyaga markaas maxaan ku yiraahdaa u sameeynayo marka qaybta sida tusaalahan hadda habkana loo sameeyaa cabirkaas la qaadanaya kadibna qolooyinka ku taqasusay طبعا هي تقدر نوع عصا لكن هو تقصي إذا سان أسميه عبرك السميان مركا هالك خوف كني تميس دم بقيت دم على السوق هذا هالك سر ولجيا هالكني و قلكم وقل سبيشال وقلك لو يقانو ماشي لو رنستو انت بدل waxaan ku bixinaa dribiska oo vitaminada dadka Soomaaliyeed inta badan vitamin D ka maqan meeshaan iliga waa Soomaaliya doctor vitamin D ga dadka maqan oo kale iron ko kale vitaminada qaarkood oo kale multivitamin ko kale energy drips ko kale waa different oo kind of waxa jira oo la isticmaalo inta badan waxay ku qoran yihiin alaabtaas ku qoran yihiin alaabtaas ku qoran yihiin waa vitaminadaasi oo loogu talagalay oo boosterka ah oo vitamin D ku jiro waxaasoo vitamin kala duwan ayaa halkan lagu sameeyaa qofka markuu yimaado uu dooranayaa laakiin dhakhtarka ayaa go'aanka ka gaarayo oo confirm gareynayo inuu macnaha qaadan karo in kale isbitaalkii oo dhan waa soo aragnay daawadayaal sida aad idinka kala daawanayseen waa isbitaal aad u weyn faracyadiisuna ay badan yihiin dhaqaatiir badan oo kala duwan ay joogaan oo qaar badan oo kamid ah Soomaali ah oo Dr. Xuseen ugu horeeyay marka waan ku soo dhaweynahay isbitaalkan wuxuu ku yaalaa xaafadda Tottenham High Road-ka ayuu dhinaca ka saaran yahay halkan shashada ayaan idin soo saarayaa postcode-ka iyo address-ka oo full ah si aad u timaadaan halkan waxa looga reysanayaa tigidhadii iyo diyaaradihii la goosanayay oo familigaaga aad ka fogaanaysay si caafimaadkaada aad wax uga soo bedesho sida aan la socono halkan Ingiriiska ma sahlana in waxyaabaha adeegyada halkan lagu qabanayo ay ka mid yihiin in timihii la hagaajinayo fitamiinadii lagu shubayo arthritis-kii iyo xanuunadii inta badan Soomaalida ku dhaco si degdeg ah laga daaweynayo allergy same day appointment u helayso oo lagu baarayo result-ga lagu siinayo waxa kale oo dheer oo soo jiita halkan in hooyooyinka caruurta raadinaya iyo aabayaasha loo keenay halkan oo wadan kale aan u aadeynin hadii ay ahaan lahayd in daawooyin lagu dadaalo ama ay ahaan lahayd in caruurta loo abuuro ku soo dhawaada Midwell Clinic oo ku yaala xaafadda Tottenham ee North London Haringey Dr. maxaa leedahay hadalka ugu dambeeya Soomaaliya dadkeenu waxay aad u yaqaanaan masjidkeenan Tottenham ku yaal u dhow Bruce Grove
masaajidka sunna ay ku tukadaan ay yaqaanaan Maqaayadda halkaas aan u Brothers nahay oo u dhow. marka welcome wixii suuragal ah insha Allah taala Insha Allah. waa kan waa wax ka qaban doonaa insha Allah taala marka wixii la qaban karo Ilaahay loo bariyo subhanahu wa ta'ala marka community waxa leenahay soo dhawaada welcome kiin halkan way annaga iyo Turkiga asla leh macnaha Turkida waa la keenay annagana qayb baan ka nahay waana shaqada way socotaa soo dhawaada wixii suuragal insha Allah taala waa idin qabanayna ilaadkiis aad u mahadsantiin